شاشدي waa aragtaan soo si fiican macnaheedu kulli xageeya ما شاء الله ما شاء الله سؤالها كله waxaan sameeynaa insha Allah maanta waxaan qaadanaynaa very fast haduu Ilaahay yiraahdo intiisa badan waan dhameynay oo muhiimadu waxay ahayd serverka local hostiga inaan dejino alxamdulillah waxaan kaloo ku guuleysanay inaan install gareyno WordPress-ki oo ahaa content management system oo CMS cPanel kana waa kii aan hore soo qaadanay cPanel waxa la yiraahdaa markaad aad local hostiga aad gasho this is called cPanel waa meesha aad ka xukumayso content management systemka marka barnaamijyadan oo halkan ku wada jiro oo dhan waxa marka muhiimka ah oo aad loo baahan yahay oo aad ku shaqeysan kartaan umbaan wax idinkaga sheegay maanta laakiin WordPress-ka umbaan xoog saaraynaa si aan u dhameystirno webka inaan install gareyno insha Allah wixii su'aal ana waa direct waad u weydiin kartaan mushkilad ma laha haduu Ilaahay yiraahdo WordPress halkan waxa waa back end markaad WordPress-ka aad soo gasho horta muhiimadda waxa waa su'aashu waxay ka taagan tahay markaan aniga aan WordPress aan install gareeyo sideen u soo gali karaa halka waxa igu qoran IP address-kaas 127.0.0.1 waa local host IP address local hostiga waa serverka local hostigeeni IP address-ku leeyahay waxaan ogaanaynaa for example if I just say here haddii aan rabno inaan ogaano waa maxay IP address muxuu noo qabanayaa maxaa loola jeedaa waxyaalahaas waxaan rabnaa inaan ogaano cilmi ahaan inaan ogaano for example haddaan iraahdo 127.0 waa aragtaan soo ma yes .0.1.1 IP address-kan wuxuu u dhigmaa for example like google.com waa magacii marka bini'aadanka waxay ogaadeen bini'aadanka inuusan xifdin karin number laakiin uu xifdin karo magac uu xifdin karo marka magac walba oo aad aragtaan oo domain ah domain kan waa domain google.com waa domain laakiin google.com waxa ku hoos qarsan IP address marka qofka IP address-ka ma xasuusan karo laakiin uu xasuusan karaa google.com marka anaga marka waxaan baranaynaa local hostiga waxa la jeedaa yes هذا si fiican absolute marka waxaan iray IP address waxa ku hoos qarsan google.com any kind of name or domain name waxa ku hoos qarsan IP address taas marka inaan fahanno waa maxay IP address iyo waa maxay google.com bini'aadanka marka wuxuu xifdin karaa magac buu xifdin karaa laakiin number ma xifdin karo IP address haddaad maqashaanna waa internet protocol kasta oo domain DNS soo mara unbaa waxaa la dhahaa domainkaasna waa inuu noqdaa magacna waxaa ku hoos qarsan nambaradaasa ku qorsan 192 hadda routerka guriga idin yaalo oo dhan waa IP address inuu qaataa laakiin shirkadda oo routerkaas internetkaas idin siinaysa waxaa la dhahaa hosting waa ayaga idin host gareynaysa internetka soo hoos gareynaysa marka that is called hadhow markaad garaacdaan for example shirkadda oo idin siinaysa internetka idin siinaysa magaceedii unbaa waxaa ku qarsan IP address-yadaasi ayadaa idin qaybinaysa marka waa fahanteen umaleyna ka waxaan soo naqanaynaa marka this IP address macallin su'aal weydiin kara so anaga marka website-keena we don't have an IP address IP address oo waxaan isticmaalayna local hostiga anaga IP address-keeni aan hadda isticmaalayna practice aan ku sameynayno waa local hostiga okay marka IP address-ka hadda anaga aan leenahay each and every person uu leeyahay waxa waaye what default IP address Allah default IP address waa 127.0.0.1 serverka marka serverka hadda local hostiga serverka aan ku shaqeynayn IP address-kaas uu leeyahay
waa garan waxaan noogu xiga marka shalay waxaan install garaynay template marka waxaan niri website-ka markaad aad dejiso WordPress aad dejiso oo aad gudaha u soo gasho content management system kadib waxaad dalbanaysaa appearance waxaan ka tagaynaa themes waxa waaye waa website designkiisii unbaad dalbanaysaa any kind of oo markaas u noqdo oo aad u baahan tahay themeska markaa ku dhufsato waxaa ku imaanaya themesyada adiga u baahan tahay haddii aysan kuwan oo defaultiga ah aysan ku anfacaynin waxaa qaadanaysaa add new anaga marka ka horeyaan usoo sameynay kan unbaan soo degsanay saad aragtaan direct marka kan wuxuu noo sahlinayaa inaan aragno markaan rabno waxaan tagaynaa gulwade right mouse unbaan visit site unbaan right mouse click ku siinaynaa kadibna waxaan leenahay open link in a new tab sababta aan u dalbanayo open link in a new tab ma rabi marka inaan ka tago page-kan hadda content management-ga ma rabi inaan ka tago wuxuu ii furayaa page kale cusub si aan labadoodaba aan u maamusho halkan markaa imaado marka website-ki direct halkan uu igu dhan yahay hadda marka waxaa iga maqan qofka iga dalbaday website-kan iga dalbaday menuyadii inaan bedeli karo ilan hadda macnaha wuxuu i siiyey website-kan wuxuu i siiyey different kind of categories categoriyada oo macnaha markaa ka baxaya waa demo 2 demo 3 iyo element blocks agency demo marka ani waxaa sahal ii noqonayso demoyada inaan midkan aniga markaas aan rabo inaan configureeyo hadda wuxuu geenayaa shirkadda laheyd oo website-kan laheyd uu geenayaa ma rabi marka ani waxaan rabaa keygii oo rasmiga ahaa inaan ani samaysto waxaan ka bilaabaynaa marka menuyadan unba waxaan kusoo reebanaynaa home about shop and service magacyadana waan ka bedeli karnaa mushkilad ma laha laakiin focuska maanta kaasaan saaraynaa insha allah waxaan ku naqanaynaa content management system kadib waxaan imaanaynaa halkaas sidaad aragtaan customize baa noogu qoran customize macnaheedu waxa waaye adoo arkaya oo haddana samaynaysaa menuyada aad wax ka bedeli kartaa menus haddaan aan direct aan imaado wuxuu i siinayaa marka menuyadii oo dhan oo isu xigxiga unbuu gacanta iga saaray waa menu structure halkan marka haddaan rabo inaan tirtiro waxaan rabaa waxa demoga ah for example this one waa demo waxaan ka tirtirayaa ila si uusan website kale ii geenin ama waxaan leeyahay remove this one I don't need it waxaan leeyahay remove this one I don't need it waxaan leeyahay remove waxaan aniga aan u baahnayn markaas waan ka tirtirayaa si uu igu soo haro home-ka oo keliya about waxaan isu raacnay inaan sidiisa ku dhaafno shop haddaanan wax iibsanaynin oo aan website-ka wax ku iibsanaynin asigoo dhan unbaa meesha ka saaraya ilaa sub itemska oo dhanna way israacayaan markaan main item oo main menu aan ka saara meesha kulligoodii way iswada raacay waxa keliya aniga aan u baahanahay marka waxa waaye account I don't need it check out I don't need it waxa aniga aan u baahnayn meeshaan ka saaray si aan macnaha aan u barano maanta submenuyada oo dhan inay meesha ku wada jiraan this one I don't need it waxay ii sahlinaysaa marka waxa aniga aan markaa u baahanahay ilaan waxaan rabaa tusaale oo waafi ah inaan idin tusiyo sida uu naqanayo website sida uu naqanayo intaas waa ka saaray waxaan u baahanahay blogna uma baahni all these kind of blogs waan ka saarayaa ilaan waxay ku xiran tahay waxa adi aad rabto inaad shirkadda wax kaa soo dalbatay inaad u samayso waana sidaad aad arkaysaan waa easy page layoutna uma baahni asna waan ka saaray waxaa ii soo haray meeshaan home about service hadhow marka haddaan rabo serviceka inaan sameeyo oo aan ku darsado submenus yani serviceka aniga aan qabanayo for example domain selling ama gawaariyaan ka hadlaya real estate unbaan ka hadlaya real estate marka waxa adiga ka hadlaysid waxa waaye waa house inaan iibinayo for example apartments inaan iibinayo servicekeena marka waxaa ku jiro under submenu apartments and houses marka hoosaan dhigi karaa hoosna markaan dhigayo halkaanaan imaanaya page oo caadi ah si aan u samaysto laakiin hadda ma haysto ma aragta
waxaan tusaale idinka tusinayaa haddii page-ka markaas already uu ku samaysan yahay inkastoo hadda aan samaynayno mid aan samaynayno then waxaan leeyahay this one waxaan leeyahay add to menu markuu soo galo direct hoos buu yimid waan soo qaadayaa drag uma ku samaynaya markaan aan under service aan hoos keeno dhanka midigta umbaan waxyar u bixi markuu one step uu soo baxo waan deyni markaas wuxuu ii naqanayaa sub item wuxuu yahay marka service umbuu sub item hoostiisa u yahay aan save garayno marka si aan u aragno isbedelka website-ka ku dhacay markaan saas u save gareeyo oo aan ogaado main menu has been updated halkaas unbaa igu soo qormaysaa kadib waxaan imaanayaa website-kii unbaan imaani markaan website-ka saas u imaado waxba ma dhacaya ilaa aniga aan sameeyo refresh halkaas refreshka unbaan ku dhufanaya refresh markaan iraahdo unbaa isbedel uu imaanaya markaa halkaan macnaha kuwii kale way wada baxeen home about servicekii haddaan galo hoos waxaa meesha ku jira Yasmina Obama objectives iyo contact us intaas misla garanay si fiican aan kulli waa la socdaa ma sha Allah ilaahay amarkiisa ku dhacday صح Quick question. You see when you add the sub menu, Yeah. does it come to the side a bit? You see like this one is a bit to the side. Is that how you know it's a sub menu? Yeah. Yeah. It will just write it here. For example, if I move back here, then you will not see sub item. But if I move here, then you can make it also under sub item of Yasmina Obama. Then how I And shall where- do this one? For example, if the company is very big, I will just put it one item here. Then I move here. Then I need this one just to be sub item under Yasmina Obama. Then what will happen? Sub menu under this. Is that clear? waa ana kulli waa eego xoga إلهي أمرك يسيكون عليك. انت انا كلي لي ما اخان kulli انا موبايل استعمالها حوالي فروزن نقضيها معلنك لكن كل كونسبت waa fahnay Okay, so to make a sub menu, you always move it a bit to the side, yeah? Yeah. Okay. أنت هذا وين فاهمني سما؟ يا أخو أرجنا شاشة ما أرجنا هذا ما عرفت الشاشة دي. هذا وأرجنا يس The other thing or an marka rabno for example this one ogaanay qaabka uu shaqeynayo waxa kala noogu xiga customize markaan imaado waxaan maamuli karaa marka every and each thing oo ku saabsan website-ka ku saabsan customize macnaheedu waxa waaye inaan wax ku dari karo aan wax ka dhimin karo yani marka laga hadlayo design-ka laga hadlayo marka wuxuu isiinayaa website-ka submenuyada uu ka kooban yahay oo dhan unbuu isiin yani si aan markaas u maamulo website-ka marka waa website oo qofka uu iibsanayo tusaale ahaanna markaa idin siiyo isla website-kan unbaan shirkad waxaan ugu dhisay let me just say to you in my company waa aragtaan soo ma shaashadeedii template-kan hadda unbaan shirkadeedii waxaan ugu sameeyey the same template waxaan ka sameeyey colorkii unbaan ka bedelay yani productyadii wixii macnaha markaas la iibinayay waa the same template no difference picturedii iyo systemkii unbaan bedeshtay designkii waa the same design haddaad fiiriso halkan there's no difference waxyaalaha aniga aan rabin waan ka qaaday inta kale hadda kan oo kale qaybtan oo kale our best quality services waan ka qaaday laakiin xilligan doono unbaa haddana furan karaa then so far we have done then this one waan ka qaaday uma baahni inta macnaha oo markaa oo yeariska ah qaybtan macnaha our customers say ayadan waan ka bixiyey shaqaalaha for example our team members
waan ka bixiyay waxa aniga markaas aan rabo uma saaray for example haddaad halkan aragtaan waa the same template waa construction qaybta halkan anaga aan rabno inaan ka bedelno for example halkan aan imaani waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan bedelo heat risk ma aragtaan hadda mela socota ha macna email address iyo telephone number waxaa sidoo bedelaan exactly marka customize-ka wuxuu ii sahlinayaa inaan direct u bedeli karo foonka markaan saas ugu dhufto aan qalinka aan ku dhufto halkan marka waxa ii imaanaya foonkii ay imaanaya for example direct marka waxaan samaynayaa reero 44 direct halkaas uma gashan waa tusaale publish haddaan iraahdo marka almost direct numberkii halkan oo +1 wuu isbedelaya qaabkaas uu isku bedelaya contact address qalinkan ku dhufsanaya direct contact address halkan uu imaanaya waxaan leeyahay London 27A direct waan save garaynaya halkan waxa igu soo qormaya London 27A ilaahay amarkiisa ku dhacday waa isku fududahay email addresskiya soo haray direct waan ku dhufsanaya halkana imaani waxa markaas aad u baxsatay domainka aad iibsatay for example haddii uu yahay gulwade maxaan leeyahay gulwade.com direct publish baan leeyahay publish markaan saas u iraa direct qadku uu ku jiraaba menuyada haddaan rabo inaan halkan ka bedelo direct asna meesha uu soo koray markaan ku dhufto menuyadii systemkiisa halkan igu soo baxay marka qaabka aniga aan rabo inaan u bedelo head of the direct korkaas waa aragtaan aan filaya about our company blocks waxa aniga aan rabin marka waan ka saaraya top menu haddaan rabo marka inaan bedelo edit baan leeyahay kadibna waxa aniga aan u baahnayn hadda for example like blog oo kale uma baahni waxaan leeyahay remove marka iraado kor waxa ka dhacaya blogi wuu ka bixi our services about our company mu u baahni ilaan halkana about ku jirta dan waan ka saaraya haddaan rabo marka inaa wax kale ku bedeshtana magacii baan ka bedelaya waxaan leeyahay for example contact staff direct waxa markaas aad rabto umbaad meesha aad ku qoraysaa waxay ku xiran tahay istiraatiijiyada oo aad shirkadda aad markaas aad wax u samaynaysid then marka ka dhamaato for example I go back diban ugu naqanaya waxa aniga markaas aan u baahanahay for example like header footer key umban direct hoos u tagi waxa aad rabto inaad bedesho marka wuxuu ku daban yahay qoraalka aniga aan rabo inaan bedelo intaan aan halkan ka raadin lahaa qalinkan umban imaanaya bas waa editing about our company qoraalkii aad soo qoratay qoraalkan marka waxaa la lahaa lorem marka waxaa loo isticmaalaa qofka designerka ah layoutka unbaa lagu celiyaa qoraalkan waa qoraal oo generate ah qofka marka wuxuu samaynayaa qoraalkaas uu soo qaadanaya intii wax uu qori lahaa halkan uu ku shubaya si uu design layout ku celiyo hadhow marka waxa aad qoratay unbaa meesha ka saaraysaa direct booskaas ku shubanaysaa is that clear yeah marka qaybahan iyo nidaamkan sida loogu saarayo haddaad intaas qaybtan aad fahanteen hadhowaan dib u wada doonaa hadduu ilaah yidhaahdo si aan waqtiga ugu faa'iidaysana marka qayb kasta waxaa idinka baraya kisbaa idinka baraya kanna macnaha waxa waaye inaad idinkaa waxay u furan tahay inaad more practic aad ku samaysaan yani inaad wax ka tirtirtaan inaad wax gelisaan yani wixii markaas idinka hor imaadana we shall discuss about it insha allah muhiimadda marka ugu weyn website marka qofka oo editing oo ku samaynayo ama updating oo ku samaynayo waa categorieska waa sababta uu muhiim u yahay waxaa jirta CEO waa search optimization system oo Google ay ku shaqeyso website-kaaga inuu noqdo more popular
marka popular kas waxa keenaya laba shay categories kaagi yani wax walba aad samayso inaad meel aad ugu toosi karto. For example, let me just click on this one si aan wax idin tusiyo. marka aan rabo inaan post aan sameeyo hadda website kan wuxuu ka kooban yahay building, construction, hotel and resource, painting, renovation iyo uncategorized. Uncategorized ma tirtiri kartid laakiin kuwa kale markaad fiiriso delete unbaa ku qoran. This one waa default marka kama baxayo laakiin intaan kale adaa samaysan kara yani categories kale unbaa ku dari kartaa. Categories marka muxuu ii sahlinayaa wuxuu ii sahlinayaa for example halkan markaan imaado building one unbaa ku jira one post kan construction waxaa ku jira 6 post postyada marka sidan u samaynaya let us do one post add new post maxaa loola jeedaa qoraalka aad rabto inaad website-ka aad ku soo bandhigto pages iyo post unbaa kala jira. Postiska marka waxa waaye under pages unbay imaanayaan. This one uma baahnid instruction inuu ku siiyo then waxaan leeyahay close. halkan marka waxaan leeyahay test direct marka testigii pagekan already markan aan rabo inaan hoos aan imaado qoraalkeygii halkan ku qoranaya sawir baan gelin karaa oo block ah kaas marka tartiib uma qaadanayna the next uma qaadanayna. hadda waxaan rabaa inaan idin tusiyo postigan si aan under category aan u gelinayn. For example haddaan imaado advanced direct halkan waxaan ku darsan karaa postiyadii aniga aan samaystay unba wax kaga darsan karaa. Elementin uu isaacidayaa markaan rabo inaan coding aan sameeyo laakiin website kan hadda anaga aan dhisayno or any kind of website in the future wax code uma baahnid inaad samayso maxaa yeelay waa already building elemental waxa samaysan open source faraas ka badan oo aad soo qaadanayso aad saaranayso oo kaliya loading oo sameynaya si uu dibna u keeno marka waa idin tusin. so macna hadii aniga aan fahmo sida aan u fahmi waxa waaye aniga dad software engineers hoola ay qabteen oo macnaha ay coding iyaga ay sameeyaan isticmaaluna to make our own websites. aniga u baahan inaan coding sameeyno marka coding an uma baahnid. okay yani ilan coding waxa waaye hadda sida markii aan ka hadlayno cyberka oo kale markaan ka hadlayno evil waxay ahayd a lot of different codes ina qorto trojan marka laga hadlayo hadda waxaas waa laga tagay. hadda markaan gaarna arkaysaan number unba isticmaalaysaan 1 2 3 yani waxay noqotay more easy yani qof walba macnaha samayn kara. hadda for example halkan elements markaan taabto hadda halkan waxa igu qoran elementor markuu wuxuu ii sahlinayaa waxaan rabo image aan rabaa inaan ku soo daro waa soo qaadaa halkan keenaya direct maarta yani halkan markuu waxay ii sahlinaysaa image-ka aan rabo inaan ku daro qaybtan kore inaan sawir ku daro sawirka marka waxaan leeyahay direct waxaan sameynayaa inaan sawirkayga aan soo qaato oo aan editing ku sameeyo. waxaan rabaa inaan widget ku daro widgetkayga direct waxaan sameynayaa haddaan rabo inaan gudaha ka soo qaato boxkan ku dhufanaa wuxuu i geynayaa pageski aan rabo inaan halkaas aan ku daro 10 daqiiqo ma soo hartay. pageska marka already way ku diyaarsan yihiin haddaan page anaga qaas noo ah from the beginning aan sameynayna scratch sida hadda aan kan post test aan u sameynayo kale test anaga hadda sameynayna ala qoranay marka. Sorry, quick question. What's a widget? Widget waa kan hadda aniga aan rabo inaan hadda idin sharxo. Widget waxa waaye markaad menuyada aad categorize aad u sameynayso qayb aad u sameynayso. For example, let us go back. Very good question. halkan markaan imaano appearance halkan waxaa noogu jira widgets. widget markaan ku dhufto yani categorize kan uu ii sameynaya. For example, right widget side website-ka wuxuu ka kooban yahay layout-kiisii right iyo left.
hadda kan marka website kan waxa lagu soo koobay oo kaliya ride widget site marka halkan aan imaado for example qaybtan oo halkan ride aniga aan dhigaya for this side waan soo koobnay maaragta sliderkiisu wuu weyn yahay laakiin waxa hadhowdii aan rabo inaan halkan dhigo sida hadda addiska oo kale widgetkiisi halkan uu igu kooban yahay marka our main service qaybtan la geliyay CL portfolio qaybtan uu leeyahay hoosna wuxuu ka wataa category yani widget wuu ku habeynaya hal mid buu iskugu keenaya hadhow marka waad ka qaadi kartaa widgetyada kale for example calendar u baahatay maxaan samaynayaa calendarkan soo qaadaya waxaan leeyahay under service kan igili hadda markaan save gareeyo calendarkii xagga iga soo baxaya marka ilan widgetka meesha aad gelisay under our main waad ku habaysanaysaa for example qofka shirkadda kaa dalbatay waxay rabtaa gallery sawiradeena projectian aan samaynaynaa sawiradian waxaan u baahannahay inaad meel sawira oo inaad noo geliso intay gelinaysaa marka waxaad gelinaysaa under services marka waxaan imaanayaa galleryan imaanaya waxaan leeyahay under services inaan boss ooga helo bosskii unbaa gelinaya our main services galleryga unbaa halkaa iga soo baxaya titlean u samaysanaya add images unbaa ku daraya imageyadii halkan image inuu jiro for example haddaan image oo cusub oo markaas project ay sameeyaan upload unbaa soo samaynaya tusaale aan idin siiyo markaan halkan ku dhufto wuxuu u geenayaa site-ka u geenayaa aan mid ka mid ah kan aan soo qaadano then waxaan leenahay open wuu soo load garaynayaa direct marka waxa kaliya lagaga baahan yahay waxa waaye inaan ciwaankii markaa oo sawirkaa inaan ku qoro local host hadda igu qoran I don't need it waxaan leeyahay test 1 2 3 ciwaanka marka waa must maxaa yeelay ciwaankaagana waa inuu noqdaa yani more detailed ah oo hadhow Google ay qaadan karto yani waa tagiska system waa inaa u samaysaa waxaan imaanayaa hoos baan imaanayaa then waxaan leeyahay create a new widget markaan saa ugu dhufto sawirkii wuu soo bixi meeshii aniga aan widgetkii gudihiisa unbuu gelinayaa insert gallery maaragta that is it marka hadhow marka waxaan samaynayaa gallery mainka oo galleryga ah waa kan laakiin hadhowdii sawiradii oo dhan halkaasay kasoo hoos baxayaan all of them haddaan marka aan niraano for example save website-kii aan imaano refresh direct marka wuxuuna siinayaa ilan maadaama categorize xagga aan ka samaysay qaybta wuxuu ku darayaa oo galleryga ah oo under our main marka waxay kaaga baahan tahay oo kaliya yani our best services our main hadhow marka waxaa samaynaysaa yani qaabka oo aad rabto inaad customize aad ugu samayso inaad qaado aad soo geliso widgetka kaasoo kaa sahlinaya inuu isku keeno qaybtan halkan magaca ka dhaxeeya widgetka marka wuxuu samaynayaa qaybtaas qaybta kore lama mid aha laakiin hadduusan widget jirin kulli way isku dhex yaacayaan all of them So is it just like menu bar basically? It's not menu bar. Menu bar yada unbaa hoos imaanaysa. For example, kan wuxuu kaliya uu ku salaysan yahay menu bar is totally different than widget. Widget So with a widget, when I click it, it takes me somewhere. Yeah. Okay. Widgetka page-kii unbuu ku habeynaa. For example, if I click on this one, this widget is connected to a page. Okay, okay. Yeah. inta soo fahanay Yeah. waxa kaliya marka muhiimadda oo kaliya aan rabno kan ugu wanaagsan oo aan rabno inaan si fiican u barano waxa waaye waa posts categories categoryga marka sida loo sameeynaya page-ka markaan sameeyo waxaan rabaa page-keygii inuu category aado for example halkan waxaan leeyahay paint waxaan rabaa shirkaddan waxay rabtaa inay iibiso paint
category baan leeyahay laakiin kama soo qaaday si oo Google search engine oo u qabto markasta oo search engine oo qabanayo waxaan sameeynaya islaag waa inaan ka dhigaa small maxaa yeelay algorithmka oo ay ku shaqeynayso Google any kind of search engine wuxuu qaadanayaa lower case marka okay yeah معناها marka waxay sahal u noqonaysaa searching engine inuu magacaas direct u soo qabto laakiin maadaama Paint oo popular u yahay waxaan sameynayaa mar walba waxaan sameynayaa si oo website-keegi oo more popular u noqdo mar walba waxaan raacsiinayaa magaca website-keega raacsiinayaa Paint ilan qofku wuxuu search gareynayaa soma markuu Paint search gareeyo dan waxaan leeyahay Paint gulwade okay halkan marka imaanaya marka waxaan sameynayaa Paint markaan qoro gulwada space ma siinayo waxaan leeyahay waxaan sameynayaa minus dan waxaan leeyahay gulwada sababta aan saas u yeelaa ma garanaysaa sababta aan saas u yeelo for example if I just click one of this halkaas ma aragtaan sugar ekumzo sugar dash ekumzo dash 45 intaas marka waxay isiinaysaa search engine-ka qof walba oo raadinaya sokor raadinaya inuu iibsado then waxa meesha ku jirta system-ka meesha noogu jira marka direct inuu search engine direct uu soo qabanaya yani in that country domain-kaas ad markaas ad ku jirto hadda search engine at Google at member at ka tahayna waxay noqonaysaa in the global that clear yeah Paint gulwada markaan ku dhufto marka for example halkan oo iimaanaya then halka waxa ku jira Paint gulwada direct laakiin waa zero markaan rabo marka inaan haddaan post sameeyo ama haddaan rabo inaan sameeyo page direct waxaan gelin karaa under Paint